inta aan ka ognaa caqabadaha ku jiray musharaxiinta iyo waxaas la xiriira dhulkeena waa dhul nidaamka asxaabta badan ku cusub yahay mararka badanna waa la filan karaa in meelo waxyaalo yaryar ka dhacaan in la xaliyay oo 99% ama 100% la xaliyay oo wasaaraddu ay markii ugu dambeysay nagu wargelisay. Bismillahir Rahmanir Rahim. daawadayaal kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka Martisoor ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah oo aan mahad celinayna inuu wareysiga naga ogolaado gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid. gudoomiye ku soo dhawaada barnaamijka Martisoor marka hore si kooban bal dulmar guud naga sii shaqada guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Bismillahir Rahmanir Rahim. aad buu mahadsantihiin daljir inaad maaragtay wareysiga naga qaadaan fursadana sidaan oo idinka mahad celinayaa guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka Puntland shaqadooda ugu muhiimsan ama mandate-ka shaqo ay leeyihiin waxa ugu muhiimsan ay ka soo bilaabataa afti u qaadista dastuurka Puntland oo la sameeyay xilli hore 2012 waxaa ku xiga diiwaangelinta iyo maaragtay sharciyeynta ururada siyaasadda waxaa ku xiga diiwaangelinta iyo qabashada doorashooyinka diiwaangelinta dadweynaha iyo qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaa ku xiga markii doorashadaas u dhacdo inay shahaado siiyaan xisbiyada saddexda urur ugu codbato oo xisbiyo isu bedelaya shaqadoodu guddiga waa intaas iyadii baan hadda dhexda kaga jiraa oo qayb ka mid ah qabsoon qayb ka mid ah gacanta ku hayn waxaynu dareensanahay gudoomiye adiga ka horeeyay wuxuu meesha uga tagay iscasilaad uu iscasilay shaqada guddigu ay hayaan saameyn ma ku yeelatay iscasilaadii gudoomiye ka horeeyay iyo inuu waliba eedo soo jeediyay maya institution-ka guddiga doorashooyinka ku-meel gaarka horta waa institution wahayad marar badan bayna soo jirtay ilaa guddigii saddexaad baan anagu ahayn qolo walba waxbay qabanayso ku beerinaysay hay'adaasna qaybo kala duwan bay u qaybsantaa qayb secretariat la yiraahdo shaqaalaha oo rasmi ah iyo commission term la oo isagu maaragtay shaqeeya muddada maaragtay uu shaqada hayo marka wax hadda taban oo aan isleenahay way ku yeelatay shaqadu way socotay sidii bayna u socotaa waana dabciga shaqada in la isbedbedelo oo qof meel maalin joogo ka tago qof kala bedelo laakiin waxa way yaraatee aan isleenahay shaqada way u dhintay ma jirto laakiin gudoomiye wuxuu soo jeediyay eedo ay ka mid yihiin in kooxo ay la dirirayeen markii doorashooyinkii dabcan gudoomiye ka horeeyay waxay qabteen doorashada tijaabada ah ee saddex degmo ama doorashadii hordhaca ahayd saddex degmo ayl ufayn iyo qardho marka shakiga halka ka dhashay sidee kalsooni dadka loo gelin karaa in guddigu si fiican u shaqeynayo oo ma aragtay arintaas meesha horta guddigii ka horeeyay baa tir guddi horta aniga naga horeeyay ma jiro anigu guddigan ka mid ahaa laakiin guddiguna waa xubno badan weeye shaqadana qaybteeda ka haynay aniga hadda ma rabo gudoomiyahii hore guddiga arrimaha u ka hadlay dee isagaa ka hadlay inaan hadda arrin la soo dhaafay waqti badan geliyano ma rabo gudoomiyuhu wixii dareenkiisa ahayd iyo wixii uu qabay isagaa ka hadlay oo faahfaahiyey inaan hadda dhaho saxbay ahayd iyo khalad bay ahayd aniga muhiimadu ma arko muhiimad waxaan u arkaa inaan shaqadii hayno mas'uuliyadii ummadda hayno isaga iyo inta la midka ah khibradda leh oo reer Puntland oo wixii talo iyo khibrad ay nagu dhaamaan weydiino ujeedkii iyo hadafkii hay'adda loo asaasay guddiga doorashooyinka ku-meel gaarka ah ay socoto meel wanaagsan marayso intaas aan ku sheegay waad mahadsantahay gudoomiye dhawaan waxaad ku qabateen Garowe shir aad ku soo bandhigteen hanaanka waxbarista ama wacyigelinta codbixiyaasha si kooban bal haddii aad noogu sharaxdid barnaamijkaas muxuu ka dhigan yahay waa run 26 bisha May baan waxaan daafuray ololaha wacyigelinta sidoo kale waxaan soo bandhignay jadwalka doorashooyinka ololaha wacyigelinta waxaan sameynay istaraatiijiyad cusub oo wacyigelinta doorashadii saddexda degmo oo muhiimadeeda ama muhiimadda loo soo hormariyay waxay ahayd in wax laga barto
xagee baynu ku fiicannahay xagee baynu ku lidanaa maadaama waddankanu aanu 50 sannadood doorashooyin qofii odagelin inta gashayna ayba yarta taa anagoo ka duulaynaan marka waxaan samaynay doorashada 3 degmo doorashada 3 degmo markay dhamaatay oo si nabadgelyo wanaagsan ku dhamaatay waxaa loo qalan qaatay in la qiimeeyo maxaa inoo wanaagsan maxaa inaga xumaan maxaa heerkii la rabay gaarin maxaa hooseeyay anagoo taa ka duulaynaa waxaan samaynay istaraatiijiyad cusub oo ay gelinta istaraatiijiyadaas dhowr qaybood bay ka koobanta qaybaha muhiimka oo markii hore aan jirin oo ku soo kordhinay oo hadda la fulin doono aan daafurkeeda in ka soo qayb gelin doono waxa kamid ah call center wax la yiraahdo oo aan shirkadaha isgaarsiinta la kaashanayno oo halka xarunta TPG laga sameyn doono oo dadku ay si toos ah oo free u soo wici karaan maadaama ay jiraan dad badan oo waxna qorin waxna aqriin kuna fahmi karin wax posters meel la dhigo iyo qoraal la baahiyo iyo muuqaal toon waxay dadkaas fursad u yeelanayaan inay si free ku soo wacaan centerka halkii mar minute wuxuu awood u yeelanayaa in 150 qof soo wici karaan laba shifti ayuu shaqeyn doonaa maalintii admins ilaa habeen waa shaqeynayaa kuma koobno in la soo wico kaliya wuxuu leeyahay laba qofku laba option buu leeyahay waxa loo diri doonaa dadka fariimo waqti la ah bishiiba mar bishiiba laba jeer ayaa fariimo loo diri doonaa fariimaha waxa ku jiri doona nambar gaagaaban oo qofku uusan u baahnayn inuu gaar u wico laakiin inuu kali ku siiyo nambaradaas ayaa qaybna waxay noqonayaan ama mid wuxuu noqonayaa mid ay xarunta toos u soo wici karaan qofku isagoo waxna qorin waxna aqriin nambarna garaacin ayuu klik siinayaa wuxuu soo dhacaya xarunta wixii macluumaad uu baahan yahay ee laga siinayaa midka labaadna waa in uu cod dhageysto cod isaga laftiisu wacyi gelin oo duuban ama codad marba xaaladda ku haboon waa la bedbedelayaa mar diiwaan gelin baa socota dadka lagu dhiirigelinayaa mar kaar qaybin baa socota mar doorashadii sida loo codeynaya laga hadlayaa inuu dhageystona iyadana si free u dhageysto codadkaas oo wax ka fahmana iyadana fursad buu yeelanayaa tan labaad waa in muhiimad gaar ah la siiyo dadka reer guuraaga oo markan lagu talagelayo in dadka reer guuraaga ah tiimam iyo qaabab dad la guurguura oo wacyigelinta ka shaqeeya la helo tan saddexaad waxa weeye in dadka wacyigelinta sameynaya ay noqdaan dad badan oo kamida laga helo community based tusaale ahaan aan inta mar loo tago oo halka laga taraafal gareeyo kaliya fariin la gaarsiini dad meel walba oo degan yihiin ama tuulo kasta ama meel kasta settlement iyo bulsho joogto in laga helo oo aan ka helo dad u heelan wacyigelinta oo si joogta u sameeya annagana xirfadii iyo tababarkii iyo wixii uu bixinayay aan gaarsiino waxa kamida iyadana in aan badinay inta ka shaqeynaysa oo aan istaraatiijiyada soo jeedinayso in aad loo daadajiyo wacyigelinta oo la geeyo community level aanay noqon wax maaragtay centerka iyo meelaha waaweyn ka socda cidda ka shaqeysa nidaam hagaya ayaan ku soo kordhinay oo aan ka ilaalinaya in duplicate dhaco ama hal meel dadkii ay isugu wada tagaan laakiin la isu balance gareeyo ee wacyigelinta si ay waddanka dhan u gaarto marka qaybahaas oo dhan bay leedahay wacyigelinta andaafo gudoomiye waad mahadsan tahay habeenkii aad daahfurayseen barnaamijka waxbarista codbixiyaasha ama voters educationka waxaa halkaas dadka ka hadlay kamid ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad wasiirku wuxuu meesha ka sheegay in qaabka wax loo barayo ama manhajka loo raacayo ama syllabuska loo raacayo waxbarista codbixiyaha ay soo diyaarinayso wasaaradda waxbarashada ee Puntland wasaaradda warfaafintuna ay baahin doonto wasaaradda warfaafinta ee dawladuna ay baahinayso arrintaas sida idin la tahay arrintaas ma jirto haba yaraatee waxaa jira wacyigelintu laba u kala baxdaa waxaa jira wax la yiraahdo civic education iyo voters education civic educationka waa in dadka
la baro xuquuqdooda iyo waxa asaasiyaadka waa wax guud laakiin kama hadlo sida loo codeynayo iyo sida tig loo siinayo iyo mandate ahaanna dowladaha manhajta caadiga oo waxbarashada iyo iskuulinka ayaa lagu dhigaa oo lagu bartaa mase aha wax marka doorashada la qabanayo inta wasaaraddu soo saarto iyadoo ay qaybiso oo la wareegto oo faafiso ma aha taas ma aha midna waa waxbaridda dadweynaha ee codayaha voters education baa la yiraahdaa taa completely guddiga iska leh wasaaradna shaqo kuma laha dabcan waa la wada shaqeynayaa wasaaradda warfaafinta waxay mas'uul ka tahay warbaahinta dowladana dastuurka iyo xeerarka laftooda qeexaya inay u shaqeyso oo ka shaqeyso si free ah voluntary loona sinaado nidaamka doorashada ururaday warbay u baahaysaa waxay rabaan guddiga doorashooyinka macluumaadkooda baahaysaa iyo shaqada dowladda kale waa warbaahintii public ahayd wasaaradda warfaafintaana maamusha wayna nagala shaqeysaa markasta oo xaalada jirto ama shaqo weyn la qabanayo qoraal baan u sameynaa waa shiraa waxaan iraanaa waa ka saasaal rabaa shaqadiida inaan wada qabanno way nala shaqeysaa wasaaradda nala shaqeeyo oo dowladda nagala shaqeeyo ka mid tahay wasaaradda waxbarashada arinta wasiirku ka hadlay annaga inaanay noqon wacyigelinta in cid walba qayb ka noqoto waa soo jeedin laakiin manhaj iyo qoraalo iyo calaamado hadda wasaaradda aan ka sugayno oo aan ka sugaynaa ma jirto waxaa la sameeyey oo jirta madal wacyigelinta ah ururada qayb ka noqonaya civil society qayb ka tibig ba qayb ka laakiin sida dadka loo wacyigelinayo oo wax loo barayo oo doorashada u codeynayaan oo doorashada uga qayb galayaan guddiga doorashooyinka meel gaarka ah liirka ah wasaaraddu liirka ma aha laakiin taas si fiiga xaq bay u leeyihiin manaba ay ahayn inay xilligan soo gaartay waxay inay manhajka caadiga ku jirto manhajka caadiga markii horeba u dhisan garaysnaato haddana hadday manhaj sameynayaan manhajka caadiga lagu darayo dadka xuquuqaadkooda iyo sida maaragtay structure-ka doorashada waxa uu yahay waa wax caam ah oo xaq u leedahay wasaaraddu laakiin wax la xiriira hadda wacyigelintan ma aha balse waxay ka mid yihiin wasaaradda muhiimka oo aan u baahanay inay nagala shaqeeyaan maadaama ay waxbarashada iyagu maamulaan goobaha waxbarashada maamulaan waana nala shaqeeyaan wasaaraddu wasiyaabo badan goobaha hadda doorashada lagu qabto diiwaangelinta lagu qabto waxa ugu badan iskuulada waliba kuwa public ah wasaaraddan u maraa waxyaalo badan oo marka isku xiran oo shaqada abaajira laakiin sida aad ii weydiisay ma jirto arinta gabagabadii hadda aad ku dhawaajisay oo iskuulada aad ku amaanaysay in diiwaangelintii lagu sameeyay iskuulada public ah waana dareemi karnaa maadaama baahiyo iska jiraan oo laga yaabo in loo aadayo inay ama space dadka qaadi kara leeyihiin ama qolal badan oo lagu kala shaqeyn karo laakiin misana dastuurka Puntland waxa ku cad inaan goobaha waxbarashada ee goobaha cibaadada loo isticmaali karin siyaasadda waxyaabo la xiriira ma ku muuqanaysaa in mustaqbalka loo baahan yahay in laga guuro arrimaha noocaas goobaha waxbarashadu kuma jiraan sharciga laftiisa sheegaya in goobaha public ah iyo goobaha danta guud doorashada lagu qabto waxyaalaha uu diido sharcigu waa campaign-ka iyo waxa la midka ah masaajidada iyo masaajidadu waa meel cibaado sabab kale oo loo tagi karana ma jirto goobaha ciidamada oo kala ka mid ah meelaha mamnuuc ay ka tahay in la geeyo laakiin inta kale oo dhan waa nidaamka saxda ah adduunyada oo dhan meelaha public ah baa la isticmaalaa meel gaar ah oo doorashooyinka u samaysan oo wax lagu qabtaa ma jirto goobaha danta guud bay ka mid yihiin goobaha waxbarashadu iyagaana saxa in lagu qabto arinta la xiriirta diiwaangelinta saddexda degmo doorashadii hordhaca ahayd markii la qabanayay ama tijaabada ahayd xubnaha laga dhex arkayay dadkii tibek ay u qoratay inay diiwaangelinta sameeyaan waxaa ka mid ahaa shakhsiyaad ururo ku jira ururo ku xisaabsan ma aha ururka dawladda ee kaliya laakiin la yaqaano ururka afkaartiisa baraha bulshada ku difaaca maadaama adduunka maanta hadda social media qof kasta aragtiisa halkaas lagala socdo ma laga yaabaa idinku caqabadihii noocaas ah inaysan idin qabsan oo doorashooyinka soo socda laga baaqsado in waxyaabahaas public ah ay dhacaan oo dadku khaladaad ay dadku wada arki karaan oo ay diiwaangelintii sameynayaan xubno ururo ku xisaabsan difaaca la yaqaano shirarkooda ka soo muuqda taas horta ma jirto anaga mana ogin markaan dadka shaqaaleynayno waxaan sameynaa screening baan sameynaa
bini aadanna waa la yahay oo dee waa laga yaabaa in wax waa gudbi karaan oo cid oran kartaa qof maalin urur ka hadlay kuma jirto laakiin intii tabarteeda waa dadaal screening baan sameynaa diiwaangelintuna xasaasi ma aha oo inkastoo ay mamnuuc tahay annagana aanan ogolaynba in qof interested group oo ka tirsan urur ama dadka waxaan ku tartamayo uu doorashooyinka lug ku yeesho haddana diiwaangelintu waaba caam oo wax urur gaara uu xataa si gaara uga faa'iideysan karo maba ahan dadka oo dhan inay marka hore isdiiwaangeliyaan weeye natiijo weyn oo markaa ka dhalanaysa ma jirto laakiin maba ogolinba oo arrintaas mana ogin annaga cabasho nooga timi oo la leeyahay dad shaqaalihiina ka mida oo urur ka socda sharcigaaba wuxuu qabaa haddii qofka caddayn lagu helo isagoo shaqada ku jira xataa markaasaa shaqada laga tirinaya marka may jirin mana aanu maqal annaga cabasho ama urur noo soo gudbiya ama cid noo keentana ma jiro markii diiwaangelinta la sameynayay waxyaabihii dabcan muuqday waxaa ka mid ahayd reer guuraaga arrinta la xiriirta maadaama ay dadku ay naq raacayaan oo laga yaabo in si degdeg ah deegaano looga guuro hadba meel la isugu bato halba meeshii roobku markaas ka da'aan ama weli uu daaqu ku sii harsan yahay xoolihii dadku ay u daaq geystaan hadda abaarna waa lagu jiraa sidee arrimahaas oo kale u waajihi doontaan waa run waxyaalaha muhiimadda gaarka oo jadwalka doorashadu siinaya ay ka mid tahay in lagu beego xilliyada qabow ama xilli roobaadka annaga waagii waxaan samaynay wadamada iyo meelaha inala midka ah waxaanay weligood samayn in baadiye cidla ah matoor laga daarto habeen iyo maalin dadka loo shaqeeyo meel kasta oo la yiraahdo dad yar oo macquula jooga wixii joogay inta la tago loogu shaqeeyo haddana tii baan samaynayno taa aad sheegtay oo cimiladana iyo doorashadu waqti iyo nidaam bay leedahay haddii wax awoodana ka baxsan yimaadaan in loo istaago maaha laakiin mar walba tixgelin baan siinaynaa xilliyada aan hadda ku beegnana waa xilliyo aan isleenahay waa xilliyo maangala oo aan kululayn hadba sidii xaaladdu noqotona waa la jaan qaadaynaa laakiin mar walba intii imka gurguur u shaqeeyaan dadka reer guuraaga meeshooda loogu tago xilliga doorashadu dhacayso iyo xilliga diiwaangelintan xilli qabow ku habboon ay noqoto baa noo qorshaysa deegaanadii ama degmooyinkii doorashadu ka dhacday eyl baa ka mid ahayd weli eyl lama dooran guddoonkii degmada arrintaas oo kale maxay ka dhigan tahay arrintaas waxay ka dhigan tahay annaga horta marka koowaad waxaan rabaa inaan ku sheego inaanay annaga shaqadeeda ahayn marar badanna waa sheegin annaga inaan golo degaan fariisano shaqadeeda kuma jirto shaqadeeda waa inaan doorasho qabanno lagu tartamo natiijada ku dhawaaqno maxkamadda sare u gudbino maxkamadda sare natiijada ansixiso ama hadday dacwada ka furan yihiin dee marka ay dhegaysato go'aan ka soo saarto intaasba waa la sameeyey xilliga ku habboonaa baana lagu sameeyey ciddii fulinta lahayd bay ku wareegtay oo ah wasaaradda arrimaha gudaha ciddii fulinta lahayd bay dee ku habboontahay in la weydiiyo laakiin inta aan ka ognahay caqabadaha ku jiray musharaxiinta iyo waxaas la xiriira dhulkeenna waa dhul nidaamka asxaabta badan ku cusub yahay marar badanna waa la filan karaa in meelo waxyaalo yaryar ka dhacaan in la xaliyey oo 99% ama 100% la xaliyey oo wasaaraddu ay markii ugu dambeysay nagu wargelisay inay shaqadii qabanayaan oo aadayaan meeshiina intaasan ka oga laakiin dee faahfaahinta saxda ah waxay ku habboontahay in la weydiiyo cidda gacanta ku haysa shaqada dabcan saddex degmo marka la qabtay hadda eyl markaan ka nimaano in ay fariistaan way soo daahday waxayna ka mid ahayd waxyaabihii laga hadalhayay shaarica oo ururadu ka hadlayeen oo dadku isweydiinayeen idinku kuwan hadda aad jaaciseen jadwalkooda oo kale maxaan ka filan karnaa marka degmooyinkaas soo baxaan ma laga yaabaa in wax iska bedelaan habkii loo fariisiyey oo awal aad moodid in qaylo badan ka jirtay oo muddo ay dib dhaceen ilaa 2 bilood ku dhawaad waa run waxyaalaha aan hadda mudnaanta siin doono in inta aan laba gaarin xeerka oo kale lagu adkeeyo xilliga rasmiga ah oo ay guru fariisanayaan nidaamkan way nagu cusub yahay xeerarku waxyaalo kala duwan bay sheegayeen laakiin marna xeer sheegaya iyo wax ogolaanaya in ilaa xadka gaaraan ma jiro balse waxyaalo isbiis sameynayay oo laba xeer oo xeer number 7 iyo xeerka kale
muddo taariikh shay waxa saajiri xeerka doorashooyinka laftiisa in lagu cadeeyo xilliga rasmiga ay fariisanayaan goluhu oo aan la dhaafi karin waqtigeeda oo ka shaqeyn doono dhawaan waxaa jiray madaxweynaha Puntland iyo guddiga xubnaha guddiga inaad wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland inuu kulan idin ku dhex maray kulankaas ma ahayn markii ugu horeysay oo madaxweynuhu uu guddiga la kulmo laakiin markii hore oo ka horeysay booqashadan madaxweynuhu xarunta guddiga yimid markaas gudoomiyihii hore intuu iscasilin bay ahayd markaan dambe ka waran oo aad wasaaradda arrimaha gudaha ku kulanteen idinka iyo madaxweynuhu bal maxaad istiraahdeen oo arintaas haddaad kulankaas madaxweynuhu waa madaxweynihii dowladda Puntland wasaaradda arrimaha gudahana public office-ka dowladda oo ka mid tahay markii madaxweynaha shaqo ama aan shir la leenahayna inuu noo yimaado sax maaha khasabna maaha hal maalin uu soo booqday waa jirtay madaxweynuhu laakiin marar badan oo ka dameysay markaa oo intaan anagu joognay aan madaxtooyada kula kulanay baa jira maalinta dhowna waxaan kula kulanay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha shirka ka dhacay shir muhiim ah working session uu ahaa muu ahayn inaan madaxweynaha gaar kelmada isu niri anaga guddiga kaliya laakiin waxa fadhiyay dhinaca xukuumadda dadkii shaqada nagala dhaxaysay oo dhan madaxweynuhu u yeeray annagana muhiimad gaar ah noolaad waxa kamid ah waxa jira wax la yiraahdo task force wasiire ah oo doorashooyinka nagala shaqeeyay iskeeda markaan nimi annaga 2019 waxaan sameynay 3 kooxood oo nala shaqeeya bala sameeyay 3 madal afka qaraadna waxa lagu yiraahdaa task force oo doorashada si xawli ah nagala shaqeeya mid walba kulan baan la yeelanaa bilaa golaha wasiirada ururada siyaasadda iyo bulshada rayidka golaha wasiirada task force ka doorashada nagala shaqeeya ilaa 8 bay ka kooban yihiin maalinta kulankaasi dhacay dhowr cisho ka hor halkan aan ugu yeer oo kula kulanay wasiirada iyagoo ilaa 8 wasiir ah oo halkan aan shirka dhacnay aan naga shir gudoominay maalinta dambe oo madaxweynuhu joogay kulan shaqo inuu noqdo uusan kulan gaar ah noqon annaga muhiimad gaar ah noolahay muhiimadda gaarka ah noolahayna waxa kamid ah waxyaalaha ugu waaweyn hadda jadwalka marka ay eegto la sugayo oo doorashada am loo sii gudbi karin ilaa la helo waxa kamid ah soodimi degmooyinka waxa kamid ah in la jaangooyo tirada degmo doorasho intuu waxay la jiraan wasaaradda arrimaha gudaha taa hadda ay weydiinaysay oo dad badan oo reer Puntland muwaadiniin is weydiinayaan oo goli deegaanka maxaa loo fariisan waayay kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha la taala waxa joogtay wasaaradda amniga waxa joogtay wasaaradda haweenka waxa joogtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada waxa joogtay wasaaradda cadaaladda intuba xeerar baa laga hadlay 4 saacadood iyo ka badan baan u malaynayaa ayaa dood shaqo oo ah cid walba waxa ku xiran inay guddiga la fududeyso madaxweynuhu amarka bixi wax diidaya in wasaaradda la kulmo horena waa la kulmi jiray wasaaradda amniga shirka dhici jiray oo waliba wasiirka amniga shir gudoominayo wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda shir kula yeelan jiray oo waliba Allah waa madaxweynaha marka xeer baan anaga ku shaqeynaa iyo shuruuc qodob iyo wax diidaya in goob anaga guri reer leeyahayna ma tagin waxaan tagnay wasaaradda publiga media joogay kulan shaqo oo muhiim ah buuna ah oo waxyaalaha doorashada dhinaca dawladda ku xiran oo dhan laga hadlay sideeda mid baan ku sheegay doorashadu guddigu waa guddi farsamo oo ka shaqeeya inay doorasho qabtaan fuliyaan guddigana taas u gaarta laakiin jawiga lagu shaqeynayo waxa laga rabaa dawladda laga rabaa waana arrin doorashadu mas'uuliyadeeda ay leedahay dawladdu in la fuliyo waa inay siyaasadeeda ahaataa waa inay priority-geeda ahaataa waa inay ka shaqeysaa si kale laguma qaban karo doorasho guddigu waxay leeyihiin inay farsamadii iyo qalabkii u diyaarsadaan doorashada inay ciddii ka shaqeynaysa u shaqaaleystaan inay goobahay dhigi lahaayeen ka shaqeeyaan inay musharaxiintii qabtaan inay daneeyaashii iyo dadkii doorashada u hardamay dhex u noqdaan intaba iyada oo intana laga filan karay ka badan baan sameeyna doonaa laakiin shaqo kale oo fara badan ayaa ku xiran amniga oo kale waagi hore waxa laga cabanayay hay'adaha amnigu ka cabanayeen in last minute la wargeliyay oo marka ciidan in meel laga saaray hadda waxaan dejinay in laga sii shaqeeyo 6 bilood oo soo socota sidii amniga warbixin aan u kala qaadan lahayn waqti la meeshii indicators inaan amnigeeda wax laga qaban karin xilli hore soo wargeliyaan wasaaradda arrimaha gudaha qodobada aan ku sheegay baa laga rabaa
wasaaradaha kale iyagana mid walba bulsho gaara u adeegta oo maamusha iyadana inay maaragtay shaqadii qayb ka noqdaan baa laga rabaa marka qaab noocaas ayuu shirkaas muhiimad gaar u leeyahay. wasaaradda arrimaha gudaha si gaar ah waxaa la xiriirta arrinta soodimaha degmooyinka. ilaa hadda ma jiraan degmooyin la soodimeeyey oo aad noo sheegi karto wasaaraddu ay idiin soo gudbisay oo la kala nidaamiyey? wasaaraddu way dhammaystirtay kulanka laftiisa kusoo bandhigtay actually aan oran way kusoo bandhigtay laakiin way confirm garaysay way dhammaystirtay soodimihii laakiin anagana lama wadaagin. waxyaalaha laga hadlay bay ka mid tahay in la raacsiiyo degmooyinka xagee doorasho laga qabanaya laftigooda aan dood ka yeelanay dhawaan bayna insha Allah lagu ballamay inay shaaciyaan. marka dib loo eego doorashadii hore kadib isbedel baa dawladdu waxay ku samaysay gudoomiyii doorashaduna way iscaasilay guddigan ku meel gaarka ah taliyihii booliskana xilka laga qaaday. weliba eedo waaweyn baa soo baxay oo tuhun keeni karay. hadda waxaad ka dhawaajisay in wasaaradda arrimaha gudaha weli soodimihii degmooyinku aysan la wadaagin. degmooyin waxaa jiray mar horeba ay cabasho ka bilaabatay deegaano gobolka Karkaar iyo Sanaag warbaahinta eedaa la isu mariyay deegaano kala hadlaya oo leh xaggaan anagu ka tirsanahay xaggaan hoos tagnaa muddada la soo dhaafay. sidee dadku iyo codbixiyaasha iyo ururada siyaasaddu kalsooni idinku qabi karaan idinkoon weli la idinla wadaagin soodimihii degmooyinka iyo siday u kala nidaamsan yihiin? eedahaas iyo wax intaas la egna ay horay suuqa u yaaleen ee dhagaha dadweynaha. horta eedahaas iyo ciidamo iyo booliis iyo waxaas aniga wax aan shughul ku leenahay ama aan hadda war ka hayno ama aan ka hadli karo maaha. laakiin arinta soodimaha iyo kalsooniduna islaam xiriirto. arinta soodimaha waa arin shaqo oo wasaarad iyo hay'ad kale leedahay. inay nala wadaagtana waa rajaynaynaa. shaqaana ka socotay iyada laftigeeda bilowgii markaan shaqada bilownay ilaa hadda waa laga shaqeynay. in cabasho iyo consign iyo wax ka imaan karaan wax la qariibsan karo maaha laanu waxaan wax cusub waa waxaan hore u jirin. isbedelka oo dhanna haddii la rabo in wax la bedelo lama filan karo inuu 100% bila hadal ku dhamaado. mar walba wax waa ka iman karaan. gudoomiye arrinta la xiriirta garsoorka waad ogtahay doorashooyinkan dadku ay toos u codeynayaan inta badan muran baa laga yaabaa inuu ka yimaado ama codad la isku qabsado ama xubnihii soo baxay. Puntland maxkamaddii dastuuriga ahayd weli lama samayn. arrintaas maxay ka dhigan tahay? saameyn ma leedahay arrintaas? horta mid anaga mar walba waxaan ka shaqeynayna ilaa waaga oo u loobin karaynin maxkamadda dastuuriga in la dhiso dhinaca shaqada muhiimad badan uma leh oo shaqo hadda aan leenahay waxay ku xaniban tahay maxkamadda dastuuriga ama doorashooyinka si gaar ah ugu xilsaaran tahay ma jirto. laakiin kalsoonida bulshada iyo ururada iyo dadka daneeya ayaa muhiimad u leedahay. laakiin doorashada muhiimad gaar ah ay u leedahay ma jirto. waana sababeynaya maxkamaddu iskeedaba sida magaceeda ka muuqataba dastuuri baa la yiri. wixii dastuur iyo xeerar iyo shuruuc iyo wada qodobo la isku qabto bay fasishaa. doorashada caalamiyan waxa la isku waafaqsan yahay caqabado way ka yimaadaan doorashada ama meel la yiraahdo waxba lagu shutay hal dhaho ama meel maamul xumo ka dhacday 98% iyo ka badan adduunka waxa la isku raacsan yahay cabashooyinka khilaafaadka waxyaalaha doorashada ka soo noqda inay yihiin wax maamul la xiriira administrative ah. waxa administrative baaristeeda iyo gelideeda maxkamadda dastuuriga shaqo kuma leh. waxa iska leh maxkamadda sare. maxkamadda sare way jirtaa way shaqeysaa qaybteeda maamulka baa iska leh. laakiin annaga mar walba waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in la dhiso nidaamka garsoorku uu dhameystiran yahay oo dadku ay maaragtay ku wada qancaan. ma laga maarmi karaa maxkamadda dastuuriga ah? ani ma oran karo waa laga maarmi karaa. jaamacadda Boosaaso ee Garowe kulan ka dhacay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad anaa joogay kulanka wuxuu ka yiri maxkamadda dastuuriga ah shaqadeeda waxa qabanaysa maxkamadda sare taasoo ay ka dhalanayso inaan laga maarmi karo oo shaqadu iska socon karto. horta waa laga maarmi karaa dawlad hadal weyn qodob dastuuriga iyo shaqo dastuuriga cid oran karta anu ma oran karo waa laga maarmi karaa. laakiin doorashada uma ka hadli karaa wixii la xiriira doorashada markii hore aan ku bilaabo waxaan ku iri shaqo hadda kaga xiran
oo ku xiran oo aan leenahay lama qaban karo doorasho ilaa maxkamadda dastuuriga la helo ma jirto ciddii ka hadlaysa oo maaragtay u baahan faahfaahinteedana annaga diyaar waa inaan u sheegno sababtoo ah waxyaalaha soo noqnoqda inta badan ama la filan karo inay soo noqdaan inta badan waxay tagayaan maxkamadda sare tan labaad innaga laba koorti ma baleehinba waa hal maxkamad oo laba fadhi leh maxkamadda dastuuriga afar garsoora waxa lagu soo daraya maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga waa gudoomiyaha maxkamadda sare hadda jooga gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda dastuuriga waa gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda sare hadda jooga garsoor cusub iyo laan cusub oo bilanaysa marna maba ahaba laakiin maxkamadda ayaa waxay yeelanaysaa laba fadhi dastuuriya iyo fadhi sare marka horta lafteeda in la fahmo way fiican tahay balse annaga mar walba waan ka shaqeynaa hay'adaha ka qorsaysan kala hadalna waxaan ka shaqeynaa in la dhiso maadaama ay ku qanacsan yihiin dadweynaheena majoritigooda ururadu ay u arkaan muhiimad kalsoonida ay u muhiim u tahay waa ka shaqeynaa waana aaminsanahay in la dhisaa inay muhiim tahay gabadhi ma jirtaa fariin aad rabto reer Puntland inaad la wadaagto dadka codbixiyaasha ay kulli aad buu mahadsan tahay fursaddan waana idinka mahadcelinaya waraysiga fariintan la wadaagaya waxay tahay dadku inay u diyaar garoobaan inay codkooda dhiibtaan waa xaq dastuuri ay leeyihiin qof kastoo muwaadin inuu cidda hogaaminaysa isaga doorto annagana waxaan u taaganahay inaan taa fulino fariimaha iyo wacyigelinta iyo waxa soo gaaraya inay ka faa'iideystaan ayaan ugu baaqayaa nalana shaqeeyaan oo cid walba maaragtay marar badan waxa dhacda in fariimo ay meesha la geeyo marar badan la tago laakiin dadku aysan ku baraarugin oo last minute kana ay dhacaan khaladaad sababi kara qofka muwaadinka inuu codkiisa dhiiban waayo marka taasna si aan u dhicin waxaan ka codsanaynaa dadku inay u dhagan nuglaadaan fariimaha wacyigelinta iyo waxa gaaraya oo qoraalada leh wax walba leh si bari ka maalin uu si fudud u awoodo qofku inuu codkiisa dhiibto waa maasantahay gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid gudoomiye aad iyo aad baa u mahadsantahay waan ku faraxsanahay inaad barnaamijka Martisoor toddobaadkan martina ugu ahayd ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta wow macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank